بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك عاوة إن شاء الله تعالى عسكدي درسك صار في سن الفوز أو الفوز العظيم، the great success. قول goorma la odhan karo qofka bini aadamkii wuu guulaystay, guushii kama dambaystahay? maxaase lagu qiyaasaa guusha? miqyaas ama measurement ama halbeeg ma leedahay wax lagu qiimeeyo oo la odhan karo qofkaasi wuu guulaystay, kaasina ma guulaysanin? guud ahaan waxaynu ognahay bini aadamku ereyga guusha iyo najaaxa iyo fawska iyo tamayuska iyo muuqashada wuu jecel yahay. marar badanna iclaamka maanta jooga waxaynu maqalnaa iyadoo marar badan lagu celinayo ciddaasaa waxaa ku guulaysatay. fii caalami ariyaada maqalnaa hebel baa guulaystay, tiim hebel baa guulaystay, ciidan baa guulaysatay. fii caalami aliqtisaad sharikaadka waaweyn shirkad heblaayaa ku guulaysatay. waxa kan wax badan oo bini aadamku uu ka warramayo oo dad guulaystay laynoo sheegayaa jira. laakiin xaqiiqadu waxay tahay, goorma la odhan karaa insaanku wuu guulaystay? maxaase lagu qiimeeyaa guusha? ma markuu adduun helo, mise markuu magac helo, mise markuu sulto iyo maamuus helo, ma markuu caruur helo iyo reer iyo deganaanshiyo, ma markuu shaqo helo, ma markuu higher degree iyo shahaadaad fiican jaamacaad macruuf oo la yaqaano ka soo qaato? goorma la odhanayaa insaankani waa insaan nolosha ku guulaystay? waxay ku xidhan tahay wax badan inaynu garanno hadafi alxayaa. maxaynu u noolahay? why we are living? maxaynu u joognaa dunida? maxaynu ka qabanaynaa? waayo ahdaafta bini aadamku uu nolosha ka leeyahay waxna waxaa la yidhahdaa waa ahdaaf marxaliya, waa goolis dhadhow. ardayga yaree iskuulka ku jira goolkiisa koowaad waa inuu iskuulkan ka gudbo, shahaadad yar uu qaato. hadhow haddana markuu tan ka gudbo abuu goolis kala yeeshaa, ahdaaf yaryar oo kale uu ka gudbo. laakiin waxay isweydiinta leh wax oo dhan isku dar, ma huwa hadafi alxayaa? noloshaba muxuu yahay hadafkeedu? waayo wax lama qiimeeyo ama fawska ama successka ama guusha lama sheegi karo haddaan hadaf la xaqiijinayaa jirin. markaad hadafka aada xaqiijinayso aada garato oo yool aada leedaho, yoolkii aada gaadho oo aad ku guulaysataa la odhanaya hebel waa guulaystay. su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay, maa huwa hadafi alxayaa? nolosha oo dhan markaad maxay gaadhaa baad guulaysatay? what is the purpose of life? maxay tahay nolosha hadafka ka dambeeya? dadka badh bini aadamka ka midi hadaf way arki kari waaye weyn oo nolosha ay leedahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay, kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu اddunya ila mataacu اlguruur. ilahi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala, kullu nafsin daa'iqatu lmowt.
naf waliba way dhadhaminaysaa geerida tan waad ka tegaysaa mahma kunt wax kastoo aad qabatay magac iyo maamuus kastoo aad yeelatay hanti kastoo aad yeelatay waad tegaysaa maxaa ka dambeeya ilaahay wuxuu leeyahay wainamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama ajarkiinna ama acmaashaa qabateen midhaheeda waxaa laydiin dhammaystirayaa baa layidhi laydiin oofinaya adduunka intaad joogto waxyaaba yaryar oo successisa waad gaadhi kartaa laakiin hadaf ilxayaa ma aha ama guusha dhabta ah waxaad gaadhaysaa natiijada kama dambaysta waxaad gaadhaysaa goolkaagii ama yoolkaagii ama meeshaad ku socotay waxaad gaadhaysaa marka aakhiro la tago aakhiro marka la tagana miisaan qura yaalla bes faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz baa ilaahay qofkii laga dhufto naar la dhaafiyo naaraan gelin jannana gala faqad faaz baa ilaahay kaas baa liibaanay xaqiiqatan kaas baa liibaanaa ilaahay leeyahay ama adduunka iyo wixii lagu hayo o dhan wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur baa ilaahay nolosha adduunna wax kalaba maaha waa mid la qalday mid la kediyey mid maqruura mataacid weeyaan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wuxuu birbidhsado dadka kuwa nolosha dambe garan waaya maalan fi sabciiniyaat falaasafadii dunida ugu waaweyneed nin ka mid ah filosof faransiisa oo falsafa alwujuudiya existentialist miyaa la yidhaha falsafadan la yidhaha qolada rumaysanayd ayaa wuxuu arkay xaaskiisiiyo qoslaysa dabeetana miduu geliyey wuu dilay boolisku la hadlo wuxuu yidhi waxaan dilay xaaskaygii qaanuunku shaqadiinni wixii u baahnayd ee boolisku ha qabto waa akbar caql filosofi faransa boliskii way yaabeen hebel professor hebel oo caqligii faransaba ugu weynaa waxaa lala hadlay janankii booliska haystay wasiiru daakhiliya la gaadhsiiyey madaxweynehay tagtay giscard ayaa madaxweyne markaa ka ah yani iminka hogaaminaya dastoorka yurub ay qoranayso madaxda waa giscard baa waxaa la yidhi akbar filosof cindana ba haweentiisii xaaskiisii dilay maxaa la sameeyey waxay yidhahdeen caarun calaa faransa in tacqila caqlaha waa ceeb bay yidhaahdeen maanta faransis caqligii ugu weynaaye uu lahaa inuu xidho musixa caqliya ha la geeya baa layidhi meelaha dadka xanuunsanaya madaxa ka jiran lagu hayo ha la geeyo ninkan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan muxuu u dilay wuxuu leeyahay nolosha tan baan hadaf lahayn filosofkan wuxuu leeyahay noloshan aan jooga hadaf ma leh whatsoever aan noqdo buu leeyahay wax kastoo aan qabto wax kastoo la sameeyo soo la dhiman maayo waxaan arkayaa buu leeyahay natiijo aanan dhaafi karin sida awgeed nolosha gebigeedu waa cabas buu leeyahay waa cayaar nolosha gebigeeduba mar haddaan wax ka dambeeyaaba jirin wax kastoo aan noqdo mar haddaan kollayba dhimanayo waxaan sidhi buu yidhi kollayba haweentani de way dhimanaysaaye maantay faraxsantae iyadoo faraxsan dunida ha ka tagto iyadoo qoslaysuu dilo iyo kollayba way dhimanaysaa marka malaa hadday joogtaa laxdaday ugu fiicnayde iyadoo faraxsan ha ka baxda dunida waxay leeyihiin dagaal lama gala bay leeyihiin aada og tahay inaad qabayso ciidanku haddii la yidhaha dagaalka waynu gelaynaa laakiin waa layna jebinayaa ciidama dagaalamaysaa hadday xaqiiqa tahay in lagu jebinayo dagaalku macno kuma markaad rajo qabto ee inaad guulaysanaysa ama wax jebinayso dagaalku qiimo samaynaya wuxuu leeyahay nolosha tan haddiiba la dhimanayo maxay qiimo leedahay wax kastoo aan soo sameeyo soo ka tegi maayo
therefore wuxuu maan dooran karaa buu leeyahay laxdada aan ugu farxad badanaya inaan ka baxo. That's why maanta Yurub qaamiyahanadeedu xorriyaadka ku doodayaan waxaa ka mid ah xorriyada ah qofku naftiisa wakhtiga uu doono inuu ka takhallusi karo. waa xorriya ragu doodayaan inaan dhinto markaan u baahdo. wasaaradda caafimaadku bay leeyihiin qofkii u yimaado yidhaahda waxaan rabaa nolosha inaan ka tago waa inay aqbashaa inay nolosha dhaafiso. waa tii loo dhistay in nolosha la ysku hayo oo dadka lagu xejiyo nolosha. waa maxay macnuhu? waxa weeyaan the purpose of life baa la fahmay. waxa la garan waayey maxaa loo nool yahay. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay markaa noloshan adduunyada geeri waa qasab inaad dhadhamiso. waxaad see ajarkaaga ugu weyn helaysaa maalinta qiyaame. ee guusha dhabtii waxa weeyaan baa ilaahay leeyahay faman zuxzixa cani innaari wa udkhila aljannata faqad faaz. qofka naar la dhaafiyo ee janno la geeyo kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi. amaa haddaad aakhire arki kari weydo wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. idan ayuha alikhwa, aragtida islaamiga waxay sheegaysaa nolosha adduun waa imtixaan. nolosha adduun waa ibtilaa. ibtilaaga noociyaadkeeda unbaa kala gedisan, laakiin noloshoo dhamma waa imtixaan. noloshan waxaad u joogtaa in questions laguu dhiibo oo jawaabaad ka bixiso. haddaad caafimaad qabto waad imtixaamanta. haddaad bugto waad imtixaamanta. haddaad faqri ku jirto waad imtixaamanta. haddaad maalqabeentahay waad imtixaamanta. haddaad baqo qabto iyo colaad waad imtixaamantay. haddaad nabad ku jirto waad imtixaamantay. nolosha gebigeeduba waa ibtilaa. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy tabaaraka aladii biyadihi lmulka wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بإلهي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. nolosha ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay un imtixaan. imtixaanka bejka adiga kugu soo baxa uun ansarkaad ka bixisaa la sugaya, jawaabtaad ka bixiso. hadduu nabad iyo nimco iyo barwaaqeeyay hal tashkur ma shukri naqday intaad ilaahay ku caabuday. hadduu dhib iyo mushkilada noqdo hal sabirt ma sabirtay intaad xisaabsatay ilaahay dartii. walidaalika ilaahay wuxuu ina leeyahay faxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha وأنكم إلينا لا ترجعون. ما هو مالين سين دل ليدين أبوري أيحسب الإنسان أن يترك السدى. بني آدم كم وحو مالين لسكسي ديني سيدا إن لقود ديني ما يا إلهي وحلي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لآمرهم بالعبادة إلا للابتلاء بالتكليف. بني آدم كوحك لو ما نبورين با إلهي لي يتشني إنسبه inaan imtixaamo takaaliifta sharciga in lagu imtixaamo mooyaane. asl alcibaada waa min fitrat alinsaan bay dhahdaa. bini aadamku sidiisaba waa caabud, laakiin waxaa kala gedisan un wuxuu caabudayo. mar hawa nafsi buu caabudaya, mar doolis iyo asnaamu isagu samaystuu caabudaya, mar rabu samaawaati waalardi buu caabudaya, mar naftiisuu caabudaya. waxa uu caabudayaa bini aadamka kala gedisan. walidaalika buu taarikhyahankii Greeg ahaa Plutarch wuxuu leeyahay qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuud wa mudunun bilaa qusuur wa mudunun bilaa madaaris walakin lam tuujad abadan mudunun bilaa macaabid. in history taariikhda bini aadamka buu leeyahay
waxaa la helay magaalooyin qadiima oo aan qalcado lahayn. waxaa la helay buu leeyahy magaalooyin waaweyn oo qadiima oo aan qusuur iyo lahayn daaro dhaadheer. waxaa la helay buu leeyahy magaalooyin aan schooling system iyo waxbarasho lahayn. laakiin fi taariikh lama haya buu leeyahy magaalo aan meel wax lagu caabudo lahayn. taariikh alinsaaniya waxa archaeology qoday waxa wax la baadhay lama haya bay leeyihiin magaalo bini aadam uu ku noolaan jiray oo aan meel wax lagu caabudo lahayn. ولذلك بلوطرك مركل أبو حليه إن مدينة بلا أرض تقوم عليها أسهل من قيام دولة بلا إله. مقالين الدستان دول بلاهين يعني وحيرة مستحيلة لأن دول بكتيرين يقولها مقالة نسوى مستحيل تاسبا كفضد بولي دولة بلا إله هين تصبيسو طبعا وحبر رمى السنين يعني إنسان هو بفطرته بو عابدي هي لكن waxay isweydiinta leh yaad caabudaa xoolahaad caabudaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy tacisa cabdu dirham wadinaar tacisa cabdu lkhatiifa. addoon waxaa hoogay ka dirham iyo diinaar addoon u ah. inaad lacag ururiso haddaad u noolaato iyadada caabudaysaa. cimrigaaga xooggaaga caqligaaga tamartaada waxaagoo dhan waxaad isugu geysay account-kaagu inuu bato. account-kan waxaad ka isticmaalaysaa waa wax yar laakiin inaad badiso. dadka badh baa u addoona guriga asaadka yaallown inuu bedelo. maanta oo dhan buu soo shaqaynayaa bilaal la wadayaa waxaa la odhanayaa fadhigaa la bedelayaa waa la wadayaa qolka seexashadaa la bedelaya. waxaad addoon u tahay alhaabtan inaad bedesho modaliskeeda. That's the purpose of your life. noloshaada hadafkeedii intan baad ka dhigtay. cimrigaagii waxan baad ku bixisay. caqligaagii xooggaagii maskaxdaadii intan baad ku bixisay. idan insaanku cibaado kama maarmo. afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah baa ilaahay ka waran ka naftiisu waxay doonto ka dhigtay wuxuu caabudo. haddaba insaanka waxaynu leenahay miqyaasu alfawz inuu guulaystay iyo inuu guuldaraystay hal miqyaasoo keliyuu leeyahy. noloshaadoo dhan marka la isku soo duubo. sheekhi zandani baa wuxuu isugu yeedhay niman khubar oo dhakhaatiira. markaasuu cilmi tashriix u ka waraystay. bini aadamku wadnuhu muxuu qabtaa muxuu taraa muxuu jidhka ugu jiraa waa la sharxay. beerku muxuu taraa keliyu muxuu taraa kani muxuu taraa waa la sharxay. kadib wuxuu yidhi waxaan oo dhan ahdaaftoodii garanay marka la isku wada dare uu qof noqdo ka warrama maxaa loogu talagalay isaga. that's philosophy. kani maaha cilmigii dhakhtarka ee waa philosophy baad ka warramaysa. wuxuu yidhi haddii acdaada qofka bini aadamka mid walba waxa loogu talagalay la gartay waxay marka la isku daro haddaad gaadhi sharaxdo oo tidhaahdo taayirku waxan buu taraa injiinku waxan buu taraa steerinku waxan buu sameeyaa daaqaddu waxan bay samaysaa marka la isku rakibo gaadhigu muxuu taraa tidhaahda garan maayo ka warran. hadafku wuxuu ahaa gaadhiga wixii loogu talagalay inuu garano baartiskiisa may ahayn. insaanku maanta nool in badanoo ka midi waxaa la garan la'ayay waa maxay hadafkiisu. markaad hadafkiisa garataa baad garan kartaa goormuu guulaystay. waayo hadafka markuu gaadho buu guulaystaa. ninka 100 mitir ordaya markuu dadka ka soo dheereeyo xariiqdii loo jeexay uu ka soo tallaababa la odhanaya waad guulaysatay. waayo hadafkii baa la garanaya goolkii lagu socdaa la garanaya. kubadda ciyaaraya labada birood meesha laga taagay markay caaga yar uu dhex maro ayaa la odhanayaa gool la qaylinaya ayuu u guulaystay hadafkii buu gaadhay. wixii bahashaba loo ereeriyey waxay inay halkaa ka baxdo. haddaad noloshaba garan weydo marka hadafka laga leeyahay waxaad u nooshay haddaad garan weydo abidkaa guulaysan maysid. se waxaad guulaysanaysaa markaad waxa soko oo dhan u arkayso ahdaaf marxaliya ee hadafkaaga weyne goolkaaga weyne yoolkaaga weyne uu kuu cad yahay aad ku socoto waxaan oo dhammin ay u adeegayaan yoolka weyn.
haddaad xoogsanaysaa, haddaad shaqaysanaysaa, haddaad guursanaysaa, haddaad aqoon baranaysa, waxaan oo dhan waxaad u adeegsanaysaa inaad ku xaqiijiso maxay hadafka weyn. markaasay noloshu macno samaynaysaa. ilaahay qur-aanka markaa wuxuu leeyahy faman zuxzixa cani innaari waudkhila aljannata faqad faaz qad aflaxa man zakaaha waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima. nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiisku imaamu muslim soo saaraya wuxuu leeyahy ruba ashcafa madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi la abarah. badanaa buu nebigu leeyahay qof basaasaysan oo albaabada laga celiyo, yacni madaahir dunya kama muuqato, inti ma haysto, muuqaalkiisu waa basaasaysan yahay. ma aha dadka albaabka loo furay markiiba la yidhaaha soo dhowow. dadka badh magac iyo maamuus iyo xoolo iyo wax buu leeyo, albaabada loo wada furaya soo dhowow baa la leeyahy. dadka badhna laa ya'bah bihi axad, cidina uma dan yeelato. kuwa caynkaasaa jira buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, oo hadduu ilaahay ku dhaarto waxa uu ku dhaartay ilaahay rumaynaya. hadduu yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa, ilaahay sidii uu sheegay uu ka dhigaya. yacni cinda allaahi wuu ka maamuusan yahay, martabad iyo manziluu ka leeyahay. walidalik baa rabu samaawaati walardi dhaartiisa uu fulinaya. ama cinda albashar albaabkaba inaan laga furin bay u dhowday. waayo basharku maqaayiistuu wax ku qiimaynayo markay qaldantaa sida tana. markay qaldanto ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nin qaaruun lo odhan jiray oo xoolo badnaa. qaaruun ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa mafaatiixda qasnadihiisa latanu'u bihi cusba min rijaal. maaha qasnadda, furayaasha ayaan koox dadi qaadi karin baa ilaahay yidhi. nin maalqabeena buu ahaa. dabeetana intuu wixiisii bandhig buu sameeyey, wixiisii intuu isku xidhxidhay oo soo kaxaystuu soo bandhigay, magaalada maray. bini aadamkii magaalada joogay baa ilaahay ka warramayaa siday u arkaan ninka kan iyo wuxuu haysto. qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa layta lana midla maa uutiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim bay yidhaha. ilahay wuxuu uhi kuwii adduunkan doonayay ee aan wax ka dambeeyaba garanaynin waxay leeyihiin yaa layta lana. layta xarfu tamani wataraji, jeclaan lahayne alla bal maanu haysanna bay leeyihin wuxuu haysto oo kale. kani waa duu xadin cadiim, nasiib weyn qof la siiyey weeyaan, waa qof successfula bay leeyihin. ilaahay koox kaluu tilmaamayana wa qaala aladiina uutuu lcilm. labadan kooxood u fiirso sifaadka la kala siiyey. qole waxaa la yidhi yuriiduuna alxayaata addunya, nolol adduunuun bay doonayaan. qolena waxaa la yidhi waa uutuu lcilm, cilmaa la siiyey, cilmi xaqiiqiya la siiye. waxay garteen waxay meesha u joogaan, waxay garteen waxay u noolyihiin, waxay garteen macna alxayaa, waxay garteen nolosha iyo ahdaafta laga leeyay. waa ahlu cilmi kuwaas ah. kuwii cilmiga la siiyey waxay yidhaahdeen baa ilaahay yidhi waylakum hawaabu allahi khayrun liman aamana wacamila saalixa walaa yuraaqaaha ila asaabiruun. waar hoogaya bay leeyihin, magiciin ba'ye hawaabu allahi khayrun liman aamana. ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalmarkiisaa ka fiican waxaana arkaysaan oo dhan. ciddii iimaan iyo camal saalixa laga helo, ilahay wuxuu ina leeyahy markaynu aakhire arki kari weyno ina haaulaa'i yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowman haqiila kalaa bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira. kuwani baa ilahay yidhi waxay jecel yihiin tan degdegta badan leh, waxaanay ilaabeen oo ka tageen maalin culus baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. aakhiray ilaabeen. tana isku nabayaanna ilaahay wuxuu ku qiimeeyey yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya walaa yagurannakum billahi algaruur. wardadow baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala, ilaahay yaboohiisu waa dhab ee adduunkan ha ku kadsoomina.
walaa yaguranakum billaahi algaruur waar mid wax kadiya rabbigin yuu idin dhaafinin ba alla leeyahy subxaana wa tacaala. nolosha markaynu eegno nolosha adduunku waa imisa dadka badh bay si qaldan ugu muuqataa. nolosha adduunkaagu adiga 60-70 years kama badna, 80 years, dadka in badan jira 100 sano. dadka kale adduunkooda adigu ha tirsanin. adduunka ninka kale shaqadaada maaha. adduunku inay sii jiray iyo waxaas adiga waxba kuuma aha. adigu adduunka waxaad ka nooshay inta tan. adduunkaagu waa intan. adduunkaagu waa intan. maalinta naftu kaa baxda adiga qiyaamahaaga kuu kaca. nolol infinity ah oo aan dhammaadba lahayn iyo 60 sannadood nolol ah isu qiimee. 60kan sano haddaad daregto iyo haddaad gaajooto, haddaad meel sare gaadho iyo haddaad meel hoose gaadho, it's matter of 60 years. waa 60 sano. laakiin nolosha dhabtahay waa ta dambaysa. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy aakhira waxaa la yidhaahdaa kam labithtum fi lardi cadada siniin. war dhulka imisaad joogteen baa la yidhaahdaa. qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowm. maalin ama maalin badhkeed baanu joognay bay leeyihin. yacni noloshii oo dhamma way la yaraatay. nolosha bini aadamka qof inuu wax soo jiro isu haystaa ma jiro. fas'al ilcaadiin bay yidhahdeen kuwii wax tirinayay bal hala weydiiyey. ilaahay wuxuu leeyahay in labithtum ilaa qaliila low annakum kuntum taclamuun. waxaad joogteen wax yar baa alla leeyahy subxaana wa tacala. taasa xaqiiqa ah. haddaa wax garanaysaan in yar baa joogteen baa ilaahay leeyahy. walidaalika ayuha alikhwa, dadku tan dhowbu ku mashquula. wixii ka dambeeyeyna waa arki waayo. yani shay yar haddaad isha ku soo dhoweyso wuu qarinaya. fartaydan ishayd oo dhan way qarin kartaa. haddii se la durkiyo way libdhaysaa. adduunka inuu isku soo dhoweynay dabeetana noloshaba waynaga qariyey. ma arki karaysid ilaa meersadiiska iyo mushaharka badan iyo waxaa mooyaane wax kale arki kari maysid. aakhirana waynu fogeynay ilaa ay libidhay muuqanba weyday. xisaabtaba aanay ku jirin. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa 2 kooxood. bal labadan kooxood dhegeyso. yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun. kuwa iimaanka laga helayo baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ma idin tusiyaabaa ilaahay leeyahy tijaara waa mushtar cadaab kulul lagaga badbaado. waa maxay? waa ilaahay aad rumayso, rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam aad rumayso, naf iyo nafiis waxa qaaliga ee agtaada yaaliyo xoog iyo xoolaba waxaad leedahay oo aad ilaahay jidkii ugu dagaalantid oo aad naf iyo shaytaan iyo waxa la halmaalaba iskaga rawdid. intaa haddaad samayso maxaad helaysaa? ilahi wuxuu yihi yakfir lakum dunuubakum wayudkhilkum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar wamasaakina طayiba fi jannaati cadn dalika alfawzu alcadiim. ilaahay dembigiinu dhaafaya oo jannooyin hoostooda webiyaal dareerayaan baa gelaysaa iyo guryo fiicfiican iyo beeraha nagaadiga. intaa markii ilaahay sheegay baa rabbi wuxuu leeyahay dalik kaas baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ayaa alfawz alcadiim. alfawz alcadiim kaas baa guusha weyn baa ilaahay leeyahay. haddaad guul rabtaan waa kaa. maxaa ku xiga? wa ukhraa tuxibuunaha nasrun min allahi wa fatxun qariib. waxaa kaloo la idin siinayaa mid kaloo idinku jeceshihiin. oo waa maxay tan kaleynu jecellay? waa inaad guulaysato oo ciddii cadowgaaga haysayseen iyo waxaad ka guulaysato aa wax furataan oo dhul furataan. idinkaa taa jecel baa laleeyahy. kaannama aanay tani qiimo badan lahayn cinda allahi subxaana wa tacaala. wa ukhraa baa ilaahay ku kelima. amaa fawska dhabta waxaa la yidhi waa tan.
وكوي دنيا المسلمين تها الدنيا نبغوا ليستي آخرنا الجنة قلي أي إلهي لي تدمون بجوشية تنا يدين كاتشعل ولا يدين قدرة كوح كلا إلهي القرآن كجور رميان نرشة لجوبي أو يجوبتي لنتي في سورة البروج إلهي كوح بكور رمي أصحاب الخدود هو بقري سيدا حديث الصحيح المسلم كنت على شيء وطارجر هل كي جدا بيسكو سمعي تضمن أيوة أنا قايدين ربي ما كيد أدين إلهي بنور ربي أنا أيوة الجدد هلاش سكدها مقالة ده الجدد لقت شحي دبا الوش ده ما ضحدي ما صافر لساتي ضدك كويس وقليل فقط إنه الرب جاي من رميسان ما إلهي بقى الرب جاي كبري ده ضبط لكن هو الديني من الرب جود دينية طبقا على الربوع نبي حلي عليه الصلاة والسلام أفضل مرة المي راع الرور والناس نوجا يستا ضبط يدور تبي ده كان المه لا يمنح إلهي كيرا وكهد يا وحلي وما أوي صبر حق ما كنت على الكوي يندب قالوا إلهي سبحانه وتعالى إنك القرآن بسودك الصدق لي نوغا والربي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وإلهي وقت المؤمن نروح ببتين يقول لي ويذكر نبي أما قويك لي إلهي وحلي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير كوي إيمانك يا عملك الصالح على جهل إلا الجبيبة وحيلي ما إلهي الدار هستودا ودرير يا وبيان وكسائل أي وحلي ذلك الفوز الكبير الفوز هي طبعا آيات بقرآن كقصار صدق هي طبعا كم يدوا فوز العظيم هل كم يدوا فوز الكبير لما كم يدوا الفوز المبين لح طبعا كبا آخرين كورمية إلهي سبحانه وتعالى كوي لجوبي نلش أدون ضبي كجبحين عندنا إلهي وحلي ذلك الفوز الكبير جوش وين كواسة جول يستبع إلهي سبحانه وتعالى جوش كبير كواصبحنا كوي دريد نحوق بطي ما الله فري إلهي كوانا وحولي ذلك الفوز العظيم أنت ودي الجنة لغوشة وأخرى تحبونها أنت أدوك لغوشة إذن أيها الإخوة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والربي مثلا بيعة العقبة الثانية هشيسك النبي وأنصار لقلي مركو هشيسك لقلي وحيد هذين حائنو هشيسة ونقول قلب الله أنه وتسوه هجرون سوا قوي مني النبي يقول نفتي إن يمالك إني عرورتي إن وحا كرنا ورطاننا إيقاي العالم إنسان يعني إنا الدفاع إنسان واحد هذين وانو كدفاعنا محان الله إننا النبي يقول مو أوران وزيران نقونيسان دولة أبو صصارك هليسان وكان يقول استيد دولة السلامية لها حولها هليسان النبي يقول جنة ليلي واحد هذين قعدت سوتك أنه هشيسك كل قلنا في أبوي راية يقال السعودية يسعد ابن زرارة يروار سوق النبي قال لك قليل هشيسك وأنا ما فهمتين وحلي من اللي يجي والعرب والنبي ربا إذا كوضا مريسا ودقال بالله إذا كوضا قاضيا ودب بدن بالله كل من دونتان ورسدا ما كو أقبليسان وحالي إذا نوى شنا ليلي يقول أن ورينا يربطين قبل ساسا هشيس نبي يقول هذا يعني وام حي ضدكني هدف كوين إنه يكون جول يستقبل راديني بل الدولة دي مسلمين تمرك إن دلتي كذب النبي يقول حكوا أنصاري ضدكوا بدن دونا إذا نوى يران دونتان ضدكوا حولها ويقرن دونا إذا أثر بارك دونتان محيد سمين دونتان صبر بكون انت الى كل مساء ادون كانوا ده بقيمه كما فديو غوش النبطه وين الاخره بدباد غوش النبطه وين النفط هذا عذاب كإلهي هذا عذاب كر مرتب
ولذلك ما نبي عليه الصلاة والسلام قبيل باوي من قبائل في عربية كاملة waxay dhahdeen waxaanu rabnaa inaanu islaamno marka waxaad nagu dartaa dad waxna bara xadiis saxiixa 7 raggii quraada la odhan jiray buu nebigu ku daray quraadani waa niman cilmiga u go'ay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay cilmiga ka baran jireen habeen oo dhan waa cibaadaysan jireen qur-aankaasay baran jireen maalintiina biyaha masaajidka dadku ku weysaystay cabbana way soo dhaamin jireen intay dabadda u baxaanoo xaabo iyo wax soo gurtaan ayay ahlu sufa dadka masaakiinta ee masaajidka degan sii jireen niman aakhiradooda u xoogsanaya bay ahaayeen dabeetana 7 nimankaa ka mida buu ku daro uu yidhi orda oo qabiilkaas wuu islaamayaa diinta soo bara qabiilkii meel dhexay u galeen 7kiiba way dileen laba nin baa baxsan nin ka mida anas ibnu malik abtigii baa ku jira xaram ibnu milxaan ayaa ku jira waraaquu nebigu u dhiibo uu yidhi ninka u dhiib madaxda waraaqdii isagoo aan weli dhiibin ayaa mu'aamaradii loo sameeyey xagga dambaa mid ka soo maray waran baa la geliyey waran baa inta xagga laga geliyey xagga laga soo tuuray u dhawaaqa wuxuu leeyahy fuztu warabbi alkacba waan guulaystay ilaaha kacbada laan ku dhaartay waan guulaystay buu leeyahy yani ninkani nolosha hadaf u ka lahaa hadaf ka lahaa inuu wax cuno oo cabbo ama guursado ama intaa ma ahayn intaa xayawaankuba waa sameeya hadaf buu nolosha ka lahaa oo ah inuu aakhiro badbaado oo guulaysto iyadoo la dilay oo adduunka kan weliba lagu dilay dhagar insaanku haddii si badheedha loo dilo wuxuu arkaa inay raganimo tahay laakiin inta la khiyaamayo in kow lagaga siiya insaanka way xagataa ma jecla iyadoo inta la khiyaameeyey aan goob raganimo loogu imanine midi hoosta laga geliyey oo waran lagu dilay ayuu haddana wuxuu leeyahay fuztu warabbi alkacba waan guulaystay rabbiga kacbada le baan ku dhaartay yacni mawaasiinta wax ku qiyaasay halbeegga uu sito ee uu nolosha guusheeda iyo guuldarradeeda ku qiyaasaya wuxuu ka gedisan yahay kaynu inagu sidan nolosha wuxuu arkayay markuu janno heli karo inuu guulaystay noloshii dhabta ahayd markaasuu gaadhay ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy wamaa haadihi alxayaatu addunya ilaa lahwan walacib waina addaara alaakhirata lahiya alxayawaan low kaanuu yaclamuun noloshan adduunyo waa madadaaliya cayaar baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala lahw waa madadaalo iyo cayaar ee nololi aakhiray jirtaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala nolosha waxaa la yidhahaa aakhiray jirtaa ina hada lahuwa alfawzu alcadiim limithli hada falyacmal alcaamiluun baa ilaahay leeyahy kaasaa guulaystay waxaan leenahay waxa khasaaray ninka noloshan ka baxa ama qofta dumar ee noloshan ka baxda isagoo aan guusha xaqiijin noloshiisii o dhan wuu khasaaray wax macnaa may samaynin inuu shahaado soo qaatay sare inuu lacag sameeyey inuu carruur dhalay wax macnaa maysa inuu dowlad maamulay ilahay wuxuu leeyay qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan almubiin baa ilahay waxaad dadka ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ina alkhasiriin aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama kuwa khasaaray kuwa halaagsamee khasaaree noloshii hadafkeedii xaqiijin kari waayey waa aakhiro kuwa la cadaabuun baa la leeyahy alaa dalika huwa alkhusraan almubiin baa ilaahay leeyahy walidalika ayuha alikhwa waxaan leenahay nolosha ahdaafteeda dhabtaa dadka xaqiijiya waxaa u mudan rusushiiyo ambiyada haddana rusushiiyo ambiyada marka laga warramayo qisaska qur-aanku uu ka soo warramay ama nebi maxamed uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ambiyada waxaa ka mid a qaar la laayey ilahay waa ka qur-aanku leh fariiqan taqtuluun ambiyada qaar ka midaa la laayey
bal علماء التاريخ waxay yiraahdaan qaar baa inta madaxa laga jaray imraa baqiya loo hadiyay madaxooda waxa kamida qaar dad badan raaceen oo dawladda dhisay oo xoogaystay nabi daawud sulaymaan boqortooyooyin waaweyn lahaa oo maqaayista bini'aadamka ee dunawiga guulaystay boqorra noqday bal sulaymaan oo kale jiniya in siba loo sakhiray technology aan maanta oo lin haystay waaga in la yidhaahdo carshigii balqiis ee yeman yaalay in falastiin la keeno ilbiriqsi gudaheed nowadays technology-ga la hayo dhammi ma samayn karo technology-ga la haya qalab sidaa uma diri kara maanta cod buu sidaa u diri karaa iyo wixii la mid ah telefoonkaad dhow ka siiso milliseconds 5-6 milliseconds baa laga yaabaa inuu qaato inuu dhanka kale ka dhaco ama sariir dhan oo boqortooyo meel taalla in xagga kale laga tuuro weli technology uma hayo nabiyullaahi sulaymaan awooddaas uu haystay maca daalik kuwii la dilayna ilaahay wuxuu tilmaamay inay faa'iiseen waxba kale nolosha ka qaban idan ayuha alikhwa nolosha dhabta ah waa kaa aqoonta dhabta ah waa aqoontaad rabbigaa garatid haddaad rabbi garan weydo professor kastoo aad tahay waxba sheegi mayso se haddaad rabbigaa garato aqoonta kale markaas ayana macno leedahay markaasay wax sheegaysa waayo nebi sulaymaan ilaahay subxaanahu watacaala markuu tilmaamaya aqoontu inay macno leedahay waxaa la tilmaamay qaala aladii cindahu cilmu kii cilmun min alkitaab lahaa ayaa yidhi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarf laynoma sheegin ma malag buu ahaa ma jin buu ahaa ma insu ahaa waxba lagama warramin sifa waaxida baa la siiyo ah inuu aqoon-yahan ahaa aqoon-yahannimo ayuu kaga keenay carshigii balqiis halkaa oo xaggan kale ku geeyay wuxuu ahaaba ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa ambiyadii dunida tan xukuntay ee waaweynay aqoon daawuud waasalnaa lahu alxadiid sulaymaan cayna alqitri baalad marka la eego aqoon bay wax ku xukumeen teknolojiyadii markaa joogtay bay u sarreeyeen dulqarnayn fattabaca sababan taas baa la tilmaamaya aqoontu qiimay leedahay laakiin haddii shayga dunidanba ugu weyn aad garan kari weydo haddaad rabu samaawaati waalardi khaaliqii ku abuuray garan kari weydo haddaad garan kari weydo noloshaadu macnaha ay leedahay aqoonta kale aad markaa garataa waxba sheegi mayso waxba sheegi mayso markaa inaad gantaal cirka u diri kartaa waxba sheegi mayso waayo adaa taadii garan la waxaad u nooshaad garan la'day waxba sheegi mayso inaad quraanjada aqoon u leedahay adigoo rabu samaawaat aqoon u lahayn garanayno wuxuu kaa rabaa ولذلك بقى إلهي القرآن كوحك إليه وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي سبحانه وتعالى يبوه يسمى بيني وحو بلن قاضي وسيدودي لكن بقى إلهي لدتك إنت بدني وحبا قرن ميس آية كحكتا إلهي وحليه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون وحي قرن ينبى إلهي ظاهرا من الحياة الدنيا مو قال كل الظواهر الحياة حتى ما ظاهر من ظواهر الحياة الدنيا ونكرة يعلمون ظاهرا مو قال كم إذا مو قال لذا ولا شيء أقول لي لكن وهم عن الآخرة هم غافلون بينهم آخرون يدوا كما قنطر مفسرين تقاركود بأمرك يفسر أيانو حيدا علامة الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب الكشاف تفسير كيسو صاق هذا وحلي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وحي بدل كتهيدو لي ولكن أكثر الناس لا يعلمون دقوا وحبا قرن أيان مركز سأل وحي قرن أيان إن يرو كأنما انتنا يقرن أيان أي لما معناتي لا يعلمون في كمت قيمة مالي
وبدل عن ذلك دي الله إعرابه بيلي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يعلمون ببدل كتاهلوا لي صاحب الكشاف الزمخشري. إذا هداد آخرة قرن ويدا هداد واحد ونوشي قرن ويدا هداد هدف كان ولاد قرن ويدا هداد نلاشة واحد كقبان يسي قرن ويدا وحا كليات قرطها معنا سمين ما يسمك ونفي العلم وعلم أن وحبك تشري وعلم أن قيمة بدن لهي علم وحو قيمة ليه هيبين لأني ووحلو حساب تميه مركا نلاشة لما أنت تفهمس dunida maanta joogta maqaayiis maadiya baa laynagu badiyey maqaayiista maadiga ah baa laynagu badiyey fitankeedii iyo imtixaankeedii baa tira batay habeen iyo maalinba waad shaqaynaysaa waad ordaysaa waad rooraysaa waad socotaa cimrigaaga iyo noloshaadii oo dhan waxaad siisay in yaroo maada ayna timayso kamaad fakarin maxaa ka dambaynaya kuma yeedhayno ma lihin adduunka baktiya kuma lihin adduunka waxbaha baranay laguma laha waxa lagu leeyahay waxaad adduunka ka qabanayso oo dhammi waa inuu u adeegayaa ta dambe inaad wax ku helayso hadday aqoon tahay aqoon aakhira wax ka taraysa waa inay noqotaa qaabkaad u adeegsanaysa hadday hanti tahay hanti aakhira wax ka taraysa waa inay noqotaa hadday cilmi tahay wax kastoo nolosha aad qabataa hadafkaaga kama dambayskaa waa inuu u adeegaya haddaad si hadafkaa ilowdo ama si aad fogayso way kuula muuqato waxa noloshan adduun oo quri waad khasaartay waxaad qiimaysaa akhira say dadka ula fududday salaada subax oo meesha inaad joogtaa waxaan filayaa saddexdii waxoogaa hadda afarta wax dhiman bay soo gashaa haddii lagu yidhaahdo shiftigaaga shaqadu 3 o'clock at night buu bilaabmaya no one habsaamaya saxiixa maaha waayo waa shay aad rabto inaad xaqiijiso qiimuu kula leeyahay agtaada cidima habsaamayso si kasta haddaad u hurdo weyntay 20 saacadood iyo moobil baad bixinaysaa kala dambeeya si kasta kuu kiciya haddaan shalay iyo caawa toona seexanay waa masbad leh waa ilaa shaqadii baad dee waayeysa ama salaada subax daalana ilaahay waa غفور رحيم marka la soo tooso baan insha Allah ilaa wada yani qiimaanay ku sameeynayeen wasliga ay agtaada ku leedahay nolosha aad ku xisaabtamaysaa inay meel buuran kaga jirin sadaradeed iyada dominaysa haday wax lumayso iyada hal lunto ama tan waynaanay waa nolosha ahdaaftii ay isdaba marinay sidoo u kala weynaa goals iyo aynu garan weynay hadafku sidoo u kala xooganay aynu garan weynay markuu qofku yimaado meel maadadu qiimo ay sameynaysan oo bini aadamka lagu qiimeeyo inta jeebkiisa ku jirtana way ka daarantay shakhsiyadda bini aadamka markay noqoto maxaad haysataa jeebkaaga lacag inta leeg ba ku jirta way lacagta jeebkaaga ku jirta طبقة معينة مجتمع كمدة كوكو دريسة داد بليونير تهي مجالس بليونير رضي يقوى صفر لسانس داد مليونير تهي مجالس مليونير داد مسكين مشاهر قاتل تهي نقوى مشاهر قاتل مشاهر هذا دا وحبابا قادلنا هو ملاها سكفر ديت كبيرس يعني وحا قيمة إنسان كاللوغان ديك جيب كيسي وحا كوشر مناها إنسان كوحو الرميسين هاي wuxuu aaminsan yahay wuxuu ku fakarayo wuxuu garanayo aqoontiisa waxa uu qiimo ku leeyahay muslimka agtiisa waa ka idan ayuha alikhwa war badan baynu mas'aladan ka oran karayna laakiin sabab kooban wuxuu waxa kaloo dhamo aqooni إلهي يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا أقوم حليل كسي ويقوم أحسن لنا قربا نلش من إن
isku hadlayninoo ilaabin. ilaahay qaar buu wuxuu ku tilmaamayaa فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. رسوش markay bayinaadka cadcad ula timi qaar baa waxay ku farxeen baa waxay ku kibreen bima cindahum min alcilm. waxoogaagii aqoonta ay haysteen ayaa la buuraaday. wixii waxyiga absolute value samada ka yimi bay ilaabeen. ilaahay wuxuu leeyahay waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi'uun. ربي وحليه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. سكت تقبل النبي محمد ليلي كتشيسو عمن تولى عن ذكرنا كأنك إنه نحصه كتشيس تيبا ربي لي سبحانه وتعالى أن دون إن نلشنا دون مويانا وحكلا وايو قوم بين هيدي ذلك مبلغهم من العلم. aqoontooda intaa baa ilaahay leeyahay waa maangaabnimo. ayuha alaxiba, caqliga dhabta iyo mufakarnimada iyo filosofnimada dhabta waa ta naar kaa badbaadisa. ama hadduu caqligaaga iyo intelligencekaaga iyo kartidaada iyo qofnimadaadu cadaab kaa badbaadin kari waayaan waa nothing. ilaahay aakhire qaar buu tilmaamaya la odhanayo war maxaa naarta idin geliyey. waqaaluu low kunna nasmacu aw nacqilu ma kunna fi asxaabi saciir bay leeyihin. dunida markaanu joognay haddaanu dhega yeelan lahayn ama caqli aanu qabi lahayn bay leeyihin. yani caqligu hadduu ku dhaafiyo aakhirada dhan caqli maaha. asxaabu saciirka kumaanan biireen bay leeyihin haddaanu markaanu dunida joognay dad raashanale aanu ahaan lahay, dad caqliga isticmaala haddaanu ahaan lahay. waayo caqliga toosani wuxuu keenaya inaad aakhira rumayso, inayd rabu samaawaati walardi rumayso, inaad rususha rumayso keenaya. ayuha alikhwa, wadanadan aad joogtaan dhaldhalaalka nololeed baa bini aadamka mashquuliya. sayniska iyo aqoonta bini aadamkee la sheegayo o dhami waa one thing buu qabtaa. all science muxuu qabtaa? waxay yidhahdaan space and time buu yareeyaa bes. marka aqoonta bini aadamku korodhaba timekii wax lagu qabanayay efficiency-gii wuu kordhaa, spacekii qalabka la isticmaalayay la dhigayana wuu la yarayn karaa. waa intaa un. qarnigan iyo qarnigii hore labadaba waa la noolaayay. qalabka la isticmaalayna wuu kala yarayay, wuu sii yaraanaya. timeka wax lagu qabanayana wuu soo yaraanaya. intaasuu technologyga tirada badan ee la sheegaya uu keena. laakiin waxaa ka dambeeya intan oo dhan kullu nafsin daa'iqatu lmowt, daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz. alfaa'izuun 4 aayadood baa qur-aanka ku soo aroray. faa'izuun afartuba iyaga waxay ka warramayaan aakhira. 16 aayadood baa alfawz alcadiim aw fawz alkabiir aw fawz almubiin ku soo arooray. 16 kuba waxay ka warramayaan aakhira. kaannamaa qur-aanku aanu ictiraafsanayn fawz aan kaa ahayn inaanu jirinba. waxaan kaloo dhami inay yihiin wax lagu madadaasho, wax wakhti yar shaqeeya. amaa fawzka dhabtahi waa kaa jid qurana wuu leeyahay. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جك الله مركا إن يقول السنوات أقوم بسكوني أدون كان يحوك سيديس بدن ليسوما كلمة نفتانا كل مشغول waxaan rabaa inaan nolosha meel kaga dartaan aakhiro xoogsigeeda inaad nolosha meel kaga darto, inaad ogaato guushaada dhabta ah iyo nolosha waxaad fahamtay marka aad garato waxa aad u nooshay. wa ilaa waana lagu dhalay waana dhimatay, waxay qiimo samaynayso kale ma jirto.
إلهي waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala inuu noloshooda fahamsiiyo saxaabadii markay noloshaas si dhaba u fahmeen ayay adduunkanna magac iyo maamuus ku yeeshay adduunkanna markaasay wax ka bedeleen markii hore niman reer baadiye ah oo iska xoola dhaqata oo waxba haysan haddii xoola lagu xisaabtamo la odhan karo waa cay haddii magac iyo maamuus lagu xisaabtamo dowlad ba aan ahayn saxaaraha ku nool waxa bedelay oo markay aakhira dhadhan u samaysay markaasay adduunkanna magac iyo maamuus ku yeesheen within 50 years ayay mashriq iyo maqrib kaga taliyeen ay dunida dowlad jirtay dhaafeen labadii dowladood ee dunida ugu xooga badnaa ka xoog badiyeen nolosha qiimo u sameeyeen dunida maamuleen iyagoo tii aakhirana ku guulaystay muslimku hadduu taa ilaabo tanna guulaysan maayo aakhirana dee ilaahay baa kama muuqato waddada la ayaa uma hatii aakhirana lagu gaadhayo adduunka lagu gaadhayo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilah